dhanka kale Cabdiqani Gamuute oo isagu kamid ah dhalinyarada talawadaag ayaa sheegay inuu fariin ka wada gudoomiyaha xisbiga ee mucaaradka ee wadani Cabdilaahi Ciro una sheegay inuu Cabdilaahi Ciro mar walba qulubta ku hayo shacabweynaha reer Sool jecel yahay midnimada reer Sool. Cabdiqani Gamuute oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay midnimada reer Sool inay xisbiga wadani u tahay mid waxaan idin sidayn fariin uu iigu soo dhibay gudoomiye Cabdiraxmaan Ciro oo ahayd gobolkii waan imanayaa iga sii horeeya oo iga gaarsii inaan soo socdo waa gobolka kaliya saad ogtihiin Cabdiraxmaan Ciro markii doorashadii laga baxay intuu TV-ga soo fadhiistay uu yiri waxaan u mahad celinayaa reer Sool gobolkaleena muu raacay waayo waxaynu ahayn gobolka kaliya ka run sheegay halgankii mucaaradnimo ee xisbiga wadani gobolada kale oo dhan muran baa ku jiray bariyahan kelmad niqaab la yiraahdo jirtay oo dad dumarku ka ninka bay xidhan yihiin oo kala aho deynanta wajigeedu inoo muuqday taa uu didan yahay isku mid maaha heer la socdo inta iska faa'iideey bay kol ayay kaga yimaadeen niqaabkoodii waxaad ka garanaysay halganka xisbiga wadani gobolkeena iyadoo madaxweyne Muuse Bixi marka gudoomiye ahaa madaxweyne Siilaanyo iyo waftiyadiisii oo dhan iyo wixii askar adduunka joogayba uu wato reer Laascaanood waxay yiraahdeen anaga mujaahidiintu nooma yimaadaan runta u sheegan maca askartiisa oo ku iska dhaqaajiyay Soomaaliland garan haddaba maanta madaxweyne Muuse Bixi waa madaxweyne ma difirsanin si kastaba ha ku helo waxaanu leenahay Muuse waa madaxweyne Soomaaliland u sareeya sida waa la ogsoon yahay ragna uu sugaya inta hayga ekaato waxa weeyaan Cabdiraxmaan Ciro maanta anigu reer Laascaanood baan ahay fariintan halkan u marinaya waxa weeyaan halgankii Laascaanood waa ka dhab weyna ku sugayaan maantana waa kuwa halka ku fadhiya haddii alla idmo sidii aad kula ballantay si ka insha Allah weyn oo ka sareysana waa lagu soo dhaweyn doonaa reer Laascaanoodna ama gobolka Sool dadkiisu waxa weeyaan xisbiga dadka kaliya boqolkiiba boqol taladiisa iyo tusaalihiisa ba kule caaw hadaan far ugu yeedho waxaan shuruud la'aan halka idinku soo fadhiisan karaa gudoomiyaha xisbiga ugu sareeyay hoggaankiisaba waxaasina xoog maaha waa jacaylka iyo wanaaga ay inoo qabaan waliba inaguna aynu u muujinay markii uu musharaxa ahaa tii iyo mid ka daran baynu la garab taaganahay waxa weeyaan 3 sano buu imika muddo 3 sano abuu madaxweynaha imika madaxweyne yahay Muuse Bixi Cabdi 3 sano inagu 3 sano sida Itoobiya aynu ka jarayna cimrigeena iyo cimriga gobolkeena waa madaxweynaha kaliya ee naga yaabiyay ee dadkiisa doortay ugu faana hantay yiraahdo ku fakhri baatiin tan waxa uu ka keenay waa yaabeed isagu ku faanayo markii uu taliyataani hadlay uu yiri xoolaha binaadaba xoolaha qaranka cuni jirteen markii uu taani hadlay yiri xoolaha qaranka cuni jirteen madaxweynihii laga filayay inuu dadkiisa ka raali geliyo waxa taliyihiisu ka hadlay intuu jaamacadda Gabiley tagay buu yiri bariyahan fakhri baa jiro waxa weeyaan ninkii nagtiisa way isqabtaan reer Laascaanood biyo la qabay wuu ku raacay in hanti lagu haysto oo xoolo laga doonayo laakiin su'aasha halkan u marinaya waxa weeye madaxweyne waliga dukaan ku furan ma naan arag gaari ku shaqeeyana ma naan arag bal horta noo soo cadeetad noogu faanaysa halkaad ka keentay intaasi hayga ahaato kaftan hayga ahaato waxa weeyaan reer gobolada dhan talawadaag way ka dhisan tahay sida la idin sheegay inaga dhalinyarada Soomaaliya matasho Soomaha dhalinyarada qaranka maxaa ku haysaa yaa ku adeegtay waxa weeyaan inta madaxtooyada ku hareeraysanuun waligeed bancaankaas ay ahayd haddaba Soomaaliya waynu iska bedelayna uma jeedno insha Allah ta'ala talawadaagna wati Soomaaliya bedel lahayd 6 gobol Soomaaliland ku mideysnaan lahaayeen wax alla wixii dhalinyarada sheegtay dhalinyarada qaranka ee yiraahdo Hargeysa xarunteedu tahay waxaan u soo bedelaynaa Laascaanood xarunta halganka in xarunta dhalinyarada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la yiraahdaa Soomaaliya ku tiirsan horta Soomaaliya waa walaalo Djibouti baynu la walaalnahay oo Jigjigeenu la walaalnahay oo
caalamka meel joogaan ba walaalaynu nahay laakiin madaxweynaha iyo dawladda waxaan leenahay idinkaa sawirro la gala oo niqaab la xidha oo qolal hoosta kala soo xidha oo wixii noo dhan oo cadayn oo qoraal iyo goobjoogayaashiisiiba la hayaa laakiin annagu Soomaali godob ka gali mayne adaa intaad qolka hoosta kala soo xidho hadhowna TV-ga ka caaya taasina way soo dhamaatay aan laga maqlin aad iyo aad baa u mahadsantihiin dalada dhalinyarada tala wadaag muxuu ahaayay halkan maanta dhismaheedu inoo yahay aad baan ugu faraxsanahay gudoomiyihiina uu soo socdaa insha Allah taala oo uu inoo imanaya taasina waxa inoo ballana sidii inagu caadada ahayd ee aynu gudoomiyaheena u soo dhaweyn jirnay inaynu u soo dhaweyno intii aynu ka codsanana wuu inala joogi doonaa ilaahu bil sanad laba maalin in alla inta doon aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin barasho wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh guula mun axmed cabdi mun maandeeq dalka TV la soconood